7 caado subax oo fudud oo kaa caawinaya yaraynta khatarta cudurrada wadnaha. Sideen u ilaalin karnaa caafimaadkeena wadnaha? Wadne xanuunka waa mid ka mid ah sababaha ugu horeeya ee dhimashada adduunka, laakiin warka wanaagsan ayaa ah in isbeddellada qaab nololeedka yar ay wax weyn ka beddeli karaan. Habka uu qofku u bilaabo subaxnimadiisa wuxuu dejin karaa codka maalinta oo dhan iyo caafimaadka wadnaha. Markaad qaadato dhowr caadooyin fudud subaxdii, qof kastaa wuxuu hoos u dhigi karaa khatarta cudurrada wadnaha oo uu ku noolaan karo nolol caafimaad leh. Halkan waxaa ah 7 caadooyin subaxdii fudud kuwaas oo ka caawin kara inuu wadnuhu noqdo mid adag oo caafimaad qaba. Cab koob biyo diiran leh malab. Cabitaanka koob biyo diiran ah oo liin ah waxa ugu horeeya subaxdii waxay caawisaa bilowga dheefshiid kiimikaadka waxayna ilaalisaa qoyaanka jirka. Fuuq celinta saxda ah waxay lagama maarmaan u tahay wareegga wanaagsan, kaas oo taageera shaqada wadnaha. Liin dhanaantu sidoo kale waxa ay qani ku tahay fiitamiin A, kaas oo laga yaabo inuu ka caawiyo yaraynta bararka iyo hagaajinta caafimaadka xididada dhiigga. Ka faa'iidayso awoodda neefsashada qoto dheer iyo fikirka. Ku bilowda maalinta oo leh dhowr daqiiqo oo neefsasho qoto dheer ah ama fekerid waxay samayn kartaa yaabab caafimaadka wadnaha. Cadaadisku waa arrin halis weyn u ah cudurrada wadnaha, iyo in si wax ku ool ah loo maareeyo waxay hoos u dhigi kartaa cadaadiska dhiigga waxayna hagaajin kartaa guud ahaan caafimaadka wadnaha iyo xididada dhiigga. Neefsashada qoto dheer waxay ka caawisaa inay kiciso habdhiska dareenka ee parasympathetic, kaas oo dejiya jidhka oo yareeya cadaadiska wadnaha. Socod gaaban u bax ama jiid jidhka. Socod sahlan oo 1-5 daqiiqo ah oo subaxdii ah waxay heli kartaa qulqulka dhiigga waxayna hagaajin kartaa wareegga. Socodku waa mid ka mid ah noocyada ugu fudud ee jimicsiga waxaana la caddeeyey inuu hoos u dhigo kolestaroolka, hoos u dhigo cadaadiska dhiigga, iyo inuu ilaaliyo miisaanka caafimaadka leh dhammaantood waxay gacan ka geystaan wadnaha caafimaad qaba. Haddii socodku aanu ahayn doorasho, dhowr jimicsi oo kala bixin ah ayaa sidoo kale kaa caawin kara inuu jidhka ka dhigo mid firfircoon oo dabacsan. Sida quraacda looga dhigo mid caafimaad leh. Quraacda oo la boodo waxay u horseedi kartaa heerarka sonkorta dhiigga oo aan degganayn iyo cunto badan oo maalinta dambe ah, labaduba waxay si xun u saamayn karaan caafimaadka wadnaha. Quraac nafaqo leh oo ay ku jiraan cuntooyinka hodanka ku ah faybarka sida miraha, iyo lawska ayaa kaa caawin kara nidaaminta heerarka kolestaroolka iyo ilaalinta wadnaha. Ka fogaanshaha cuntooyinka warshadaysan iyo sonkorta xad-dhaafka ah ee subaxdii sidoo kale waa hab weyn oo lagu ilaaliyo caafimaadka wadnaha. Ku beddel kafeega shaaha dhirta ama shaaha cagaaran. Iyadoo koob kafee ah subaxdii ay dad badan caado u tahay, u beddelashada shaaha dhirta ama shaaha cagaaran waxay noqon kartaa doorasho wadnaha ku habboon. Shaaha cagaaran waxaa ku jira antioxidants kuwaas oo gacan ka geysta hagaajinta shaqada xididada dhiigga waxayna yareeyaan heerarka kolestaroolka xun. Shaaha dhirta sida hibiscus ama shaaha sinjibiil sidoo kale waxay leeyihiin sifooyin taageeraya caafimaadka wadnaha iyagoo hoos u dhigaya cadaadiska dhiigga iyo bararka. Hel xoogaa qoraxda subaxdii. Ka bixida bannaanka dhowr daqiiqo oo iftiinka qoraxda subaxdii waxay ka caawisaa jirka inuu soo saaro fitamiin D, kaas oo muhiim u ah caafimaadka wadnaha. Heerarka fitamiin D ee hooseeya ayaa lala xiriiriyey khatarta sii kordhaysa ee cudurrada wadnaha. Ku qaadashada 1-5 daqiiqo oo keliya iftiinka qoraxda dabiiciga ah waxay kor u qaadi kartaa niyadda, nidaaminta cadaadiska dhiigga, waxayna taageertaa fayoobida guud. Maalinta ku bilow mahadnaq iyo wanaag. Lahaanshaha maskax wanaagsan waxay saamayn la yaab leh ku yeelan kartaa caafimaadka wadnaha. Daraasaduhu waxay muujiyeen in dadka aragtida togan ee nolosha ay u dhowdahay inay ku dhacaan cudurrada wadnaha. Subaxda oo lagu bilaabo mahadnaq, joornaal, ama si fudud uga fikirida dhowr waxyaalood oo lagu mahdiyo waxay kaa caawin kartaa dhimista walaaca iyo hagaajinta guud ahaan